beerahayna miinaa la geli ma beentaya yaa geli jubbaland agilis miinaa la geliyey maamaa noogu dhimatay xali aaskeedan joognaa shacabka xaafadda Biibwan oo dhacda saddexagalka Kenya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ka cabanaya qoys ay ka soo gaareen walxaha haraadiga oo beerahooda loogu tagay gaar ahaan xaafadda Biibwan kuwa ay ugu tageen ciidankii daraawiishta Jubbaland oo maalmo ka hor halkaasi deganaa waxaana halkaasi ku dhintay hooyo Faadimo Nuur Xuseen iyo gabar ay dhashay oo dhaawac uu ka soo gaaray ayaduna hadda lagu tacaalayo isbitaal ku yaal ismaamulka Mandera Allah u naxariistay magaalada Mandera ayaana lagu aasay hooyo Faadimo oo u geeriyootay haraadiga walxaha qarxa oo loogu tagay beer ay ku lahaayeen xaafadda Biibwan qaar ka mid ah shacabka ismaamulka Mandera oo aaska ka soo qayb galay ayaa Somali Cable TV ugu warmay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un halisdaji inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un geeri naxtin leh oo lala yaabaa ka dhacday Biibwan aan ka tacsiyeynaa koow dhammaan reer Mandera iyo ummadda muslimka iyo adduunka dhan waxaan u sheegaynaa dawladda Kenya inay soo dejisay Biibwan Malaysians from Jubbaland ay noo keentay markii ugu horeysay beerahayna la deji la celiyay Soomaali loo celi dagaal lagu soo qaaday lagu soo dhax celi mar labaad iskuulkayna la deji iskuulkayna hatta qatar ah ilmo ma gali karaan ma miinaysan yahay ma naqaana ma beentaya beerahayna miinaa la geli ma beentaya yaa geli Jubbaland agilis miinaa la geliyey maamaa noogu dhimatay xali aaskeedan joognaa Faadimo Barre ayaa dhimatay Allah u naxariista maamo kulayl badan oo aad qaali nooga ah nin rag hataa ka qiimo badan anaga dhimatay waxa dili Kenya dish haday ciidamada Jubbaland halkan iimaani lahayn Faadimo Barre waqtigeeda hagala ma dhimin lahayn Kenya adishay dawladda Kenya u haysanaa number 1 madaxweynaha Kenya waxaan u sheegaynaa dawladdaanaas soo dhaxdhigtay Jubbaland hadii aad naga qaadi waysi waxaan codsi u dirsanaynaa dawladda Soomaaliya ha naga qaado ciidanka asoo galaan xawada we shall tell the government of Somalia let them come and defend us the Kenya government was unable to defend us we don't know why our people are dying day and night we don't know man naqaana anaga dadkayna waxay ku dhimanayaan dawladda Kenya wayna difaaci weyday waan u sheegnay 10 jeer aan u sheegnay mar maaha laba maaha dadkayna heer waxay marayaan qaraxay ku dhintaan yaa sababay dawladda Kenya sabab ah dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah cawada ay ku baran nimankaas meesha noogala qaada hana la dhaafi anaga qaada dawladda Soomaaliya way qaadi waysi Kenya we don't know why dadkayna maxay u dhimanayaan anaga la qaada aniga hooyaday Biibwan iyada 3 sano jirtay imaaday haddana waayeel way joogtaa anigana 50 jir aan ahay waligay qarax maan arkin nin qori wadan Kenya ahayn waligay ma arkin wadankan ku dhashan ka cararahaya wadankan u dhashan ciidan u dhashan ka cararahaya niman garanaynaan ugu cararahaya tafadaali saana bandiirada Kenya dawladayna madaxdayna waxaan ka codsanaa dadkaan aan garanayn oo awlaadayna aan fiigayn anaga aan fiigayn inayna dhaafisaan ka codsanaynaa aan joognaa Biibwan waxaan iskugu imaanay qabri ku yaal Biibwan waxaan duugaynaa maama Faadimo Barre maama shalay gurigeed ka baxdi oo beereed aadi oo ilmeed qudaar u raasidisi oo wixii magaalada ay ku joogleed ka raasatay ayaa markay soo galbatay explosive ku istaagtay way dhimatay dad badan waxay sheegeen waxay wada ku qaraxay waxay ku istaagtay ayaa ku qaraxay meesh waxay ku waysay lugti isbitaalka Lolordi waxay ku dhimatay isbitaalka Mandera referral ku dhamaatay maamada Allah u naxariista maamadu way tagtay waxaan u maleynaa dhimashada maamadu waxaan istaajin karin malaha
laakiin waxay noqoni badbaadista reer Biibon insha Allah geed dheer iyo geed weyn geed yar waan u fuulaynaa insha Allah markii ugu horreysay horta nimankii waan bixinay waa la soo jibiyay haddana waa la soo celiyay mana ka saacanayn insha Allah waan bixinaynaa ma tegi kara maanta hadda meeshaan ku taaganahay qadar uma lihi meeshiida beerta hadda gabadhaanay marxuumidan maanta hadda la duugi yahay dhibku shalay ku gaari waxa la dhahaa group A1 jidkaas ayaa dhaxmaray jidka laba dhinac ka kala jiraan ayadoo sidaas ay tahay beertii aabaheed ay lagu soo koriyay dhaxdeedii ayaa dhibkan shalay ku gaari yaanyada dhaxdeeda looga dabay mar hadduu nimanka ay baarjiif naga jiraan meesha aniga aan joognin hadda beerihii iskiimkii garboqol Biibwanaas yahay marka dhulkan kulli waa dhulkii ay difaac jalfisa iskaga dhigeen way inta dhimata Allah u naxariisto inta noolna nabad iyo caafimaad Allah sii aamin teedii kale waxaan ka hadlayaa anaga reer Biibwananan meeshaan beerahayna maalin walba dhinac niman aan anaga garanayn ayaa ka soo digay markay hadlayeen oo idaacadaha ka hadlaan waxay dhahan waxaan deganahay duleedka Tulaamin meeshaan ma Tulaamin ama soo Kenya Biibwan aan joognaa anaga maaha meeshaan Tulaamin wax lama Tulaamin waa Soomaali wixii kulli intay ka soo tageen beerihii bartankooda ay tageen ilmihii maalin walba mid goosanay bambada beerta dhexdeeda ayuu dhigayaa ilmahayna khatar ay ku jiraan meel kasta wax baa noo yeela cid soo fiirin male ala ilaahan dhibkaas aan haysta Haliyare Somali Cable Bradhaw